Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my new video. maanta waxaan rabaa inaan sameeyo suqaar marka nala socda xaaska maanta waxaan iri break inaan geliyo waxaan ku iri waxba ha sameynin anaa maanta sameynaya marka waa idin tusayaa sida loo sameeyo suqaar aad u macaan badan oo fudud. Please haddaad channelka ku cusub tahay like, subscribe and share. haddii aad horey noola joogtayna waxaad taabanaysaa like button and share. wixii hadal ah ama aad rabto inaad su'aal iga soo weydiiso comment below. Thank you very much. ila soco hadda ayaan u gudagalaynaa. Okay, bismillaahi rahmaani rahiim. dabka ayaan u daaranay marka everything was ready. wixii aan ku dari lahaa wax walba waan soo diyaarsaday. suqaarka adiga arkaya in yar ayaan rabaa inaan dabka ku hayo anoon wax kale aan ku darin. cusbo kuma aan darin, saliid kuma aan darin, xawaash kuma aan darin. marka isagoo sidiisa ah ayaan marka hore maaragtay biyaha ayaan ku celinayaa si oysan macaanta ama dhadhanka uusan kaga tagin hilibka. marka insha Allah waa isku soo noqonaynaa. All right guys, waa ujeedaan suqaarka siduu noqday. waa ku celiyay biyahan ku celshay sidaa inuu noqdaa la rabaa. wuxuuna waa hilibka loda waaye, waa hilib lo-aad ma aha hilib ari ma aha, waa hilib lo-aad. Okay, marka halkan ayaan ku shuban doonaa, boolkan ayaan ku shubanayaa. waa kulligaa yar ayaan ku shubtay si aan maaragtay alaabta kale aan u samaysto. All right, kan marka dabka ayaan ku soo celiyey insha Allah. kan waxaanu samaynaynaa in yar oo saliid ah ayaan ku shubay, laba qaado saliid ama 3 qaado whatever. marka waxaan ku dari doonaa alliya muxuu ahaa tunti ayaan ku daraynaa. sorry baan kaga dhacay. tunta ayaan ku daraynaa. okay, marka waad arkaysaa tunta waad arkaysaan. okay, I love tunta. anigu tunta aad baan u jeclahay marka wax badan ayaan ku darsadaa. de qof walba siduu maaragtay jecel yahay. tuntuna waa aad u fiican, flavor fiicanna way siinaysaa. aad buu maaragtay u macaanayaa oo caraf badan buu samaynayaa. marka muxuu ahaa qof walba siduu maaragtay intuu jecel yahay ayuu ku dari karayaa. yaa marka waad aragtaan waxaan ku daray 6 xabba ayaan ku daray oo tuna. it's fine. ruux walba intuu doono ayuu ku darsan karayaa, laakiin aniga in my house alxamdulillah aad baa maaragtay aan u jecelnahay, aad baan u cunnaa. qof walba siduu jecel yahay isagaa yaqaan. all right, marka intaa marka ay noo dhammaatay arkaysaa ka waxaad ku daraysaa basashi ayaa ku daraysaa. waa 1 xabo basal ah ayaan jarjaray, weliba aad baan u yaryareeyey. ciyaalku ma jecla marka waan yaryareeyey, inkastoo maaragtay insha Allah ay muxuu ahaa iska way jirci doontaa marka ma kala garan karayaan. marka waa intaa ayaa mataqaanaa ku sii doonaa. all right,
wait until it gets brown. Okay, waa ujeedaan sida ay u gaduudatay ama maaragtay brown ay u noqotay. That's how you like it. This is very nice. Smell fantastic. Marka waxaan samaynaynaa ku darayaa ama arid carrot ayaan ku darayaa ama karootadii. Marka aad baan u yaryareeyay si ay ciyaalka maaragtay u cuni karayaan. Okay, maasha allah. Marka waxaan ku darayaa haddana batatigii ama potatoes oo aan iyaguna si normal aan u jarjaray. So good. Marka insha allah I'm gonna add more potatoes because ciyaalka potatoeska way ku koraan, way ku weynaanayaan, lafahooda aad buu ugu wanaagsan yahay. Marka waad arkaysaa, this is the best. Okay, marka waxaanu samaynaynaa seasonka ayaan ku dari doonaa ama waxyaabihii carfinta. Kan waa cusbo, waa sea salt, cusbada badda waaye, waa egg sidee u egtahay, waa flake. Marka wax ka badin maysid, in yar unbaad ku daraysaa because aad bay u macaan tahay, flavor fiican bay siinaysaa. waxaan kaloo ku darayaa kuumanka. Kuumanka af Soomaaliga waxaa lagu yiraahdaa waa xawaaji dhoodhoob. Marka isaguna aad buu maaragtay flavor wuxuu siinayaa aad u fiican. waxaan kaloo ku darayaa ginger ama sanjabiishi oo daqiiq ah. Marka muxuu ahaa ninkii yaqaana sanjabiishi oo daqiiq ah ayaan ku dari doonaa si hilibka oo inoogu jilco iyo bataatiga. Sanjabiisha gives more flavor, wayna jilcinaysaa waxa dhan. Kan waa mixed spices, waa xawaaji oo ku jiro basbaaska. Marka insha allah isaguna aad buu u macaan yahay. Don't put too much because ciyaalka yararka haddii kale maaragtay ma cunayaan. Wuxuu leeyahay chili ama basbaas ayuu leeyahay. Kan waa muxuu ahaa black pepperki ama maxaa la dhihi jiray filfil. af Soomaaligii ayaa lumay, waa filfishi. Marka wax badan ku dari maayo. insha allah aad bay u wanaagsan tahay filfisha. Ka intaa un baan ku darayaa. It's good. Oh my god, smell nice. aad buu u carfayaa. Marka intaa isku darto isku qalayso. Marka muxuu ahaa hilibki ayaad markaa ku daraysaa. maasha allah, oo hore aan u samaysanay. kor baad isku yara walaaqaysaa amba isku qasaysaa. waxaad samaynaysaa waad ku yara daboolaysaa. Give me 5 or 6 minutes. Okay, it's coming back. Arkaysaan adoon wax kala samayn, hot water ayaa ku daraysaa. hot boiling water waa kasalka ayaan u karsaday. Marka egg. This is a new technique. It's the best way to cook. Marka aad doonayso inaad samayso suqaar yar oo aad u macaan oo maraq leh oo carruurtuna ay ku cuni karaan, rootida ama laxooxda ay ku cuni karayaan. Yeah? Marka intaa un baan ku darayaa. Dabkaan u gaabinayaa
marka aan dabka u gaabiyo let's say about like 20 minutes or 25 minutes up to half an hour cooked nice way juice and good flavor marka insha Allah stay tuned okay akhyaartayda sharafta leh isku soo noqod wanaagsan oo ujeedaan half an hour ayaan ka marnay nus saac ayaan ka marnay okay it's very hot wallahi bismillah arkaysan indhihiina macallina lama walaaqin wax kale laguma dirin intii awoodoodeen baan ku sameeyey look bataati inuu jabo lama rabo hilibku waa tender you see have a look so nice very nice that's beautiful oops love it okay son everything's nice maraq yaraan ugu sameeyey then fruitgaas lagu cunaa insha Allah let's see bataatiga inuu bislaado in kale isagana look at this ilahan ku dhaariyay fiin so nice look was soft very soft that's nice okay that's it wax kale lagu mudraayo waa inta markaan service garaynayo ayaan idin tusi doonaa haddana mar kale stay tuned come back later after aan ka soo saaray marka service ayaa bilowday inaan maaragtay siiyo waad arkaysaan sida uu noqday maasha Allah saa ayaa ugu cunaysaa ka muuskina uu ka biyihii caddaa iyo rootidii marka sidaa ayaa maaragtay ugu wanaagsan ee loo samayn karayo suqaarka waad salaamayaa waa walaalkiin channelkan waxaan idin leeyahay if you like it like share and subscribe thank you and see you next video assalamu alaikum